بسم الله الرحمن الرحيم سو dhawaada saaxiibayaal asxaabta igu xiran follow iyo like intaba xaqiina waaye waxaan ka soo gudubnay access 1.1 waxaan u gudbaynaa access 1.2 waliba waxaan ku hormareynaa insha Allah baga 13aad qaybta activity-ga ama isku aadiskan ku hormari doonaa inta access-ka u gudgalin baga 13 uu ku yaala access-ka qaybtan activity-ga waxay ka kooban tahay 6 qaybood wala 6 su'aal marka 6 su'aal waan ka shaqeynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo midku ku aadana ku aadin doonaa waxaan ku hormareynaa waan ka bilaabeynaa marka su'aasha koowaad oo nala siiyay sin 15 degree marka waan ka shaqeynaynaa markaan ka shaqeyno xarafka ee mudan tahay in lagu aadiyo ku aadinaynaa marka waxaan leenahay sin 15 degree waxay la mid tahay sin 45 oo laga jaray 30 degree ee la mid tahay marka fiirso form ahaan waxay egtahay sin a minus b oo egtahay sin a minus b see loo fufuri jiray marka waxaan leenahay sin 45 cos 30 oo laga jaray waxaa leedahay markaasi cos 45 sin 30 leedahay marka sida tiraado mid walba qiimihiisa aad ku bedelanaysaa ama calculator-kaada gali sin 45 waa radical 2/2 ku dhacsan cos 30 qiimaheedu waa radical 3/2 minus a leedahay hadana waxaana qoran cos 45 qiimaheedu waa radical 2/2 sin 30 qiimaheedu waa half haddaba markay sidaan meesha marayso waxaa sameynaysaa radical 2 radical 3 ku dhufanay waa radical 6 2 ku dhufanay waa 4 minus a leedahay waxaa ku dhufanaysaa 1 waa radical 2 loo qeybiyaa leedahay 2 ku dhufo waa 4 haddaba markay sidaan tahay jawaabta waxaan sameynaynaa oo seeshka midka halka mid qaado 4 ah labadan kore kala majarmaan soo guuri radical 6 oo laga jaray radical 2 marka qaybtan a oo su'aasha koowaada waxaan ka baaraynaa marka qaybta xigta oo column b-ga ah xarafka ku aadaysan ku aadinaysaa jawaabtan qoran oo ah radical 6 laga jaray radical 2 loo qeybiyo 4 waxay ku aadaysaa marka la fiiriyo xaraf ahaan xaraf c ee qaybta kale ku aadaysaa c ee qaybta kale ka faa'iideyso insha Allah qitaladan gudbi